الحمد ما شاء لله الله. ساكت وقتي هوري أرواك وحيسة قفيا والله بالله والله أنا حتى أبغى حيسة محل سنوش هذا كور Oh my god أنا قفي عنها والله بالله هاي waxbarashadii ma dhamaysay ilmihii wada fiicantii aad baan u fiican alxamdulilah aad aan u fiicannahay maasha allah waxbarashadii iga waran ma dhamaysay waxbarashadaadii walaalay wallaahi waa dhamay waxbarashadii Haye. alxamdulilah dhibkeeda iyo boorsadeeda waa iska dhigay waa dhameeyey haye waa kaasaa maxaa marka aad qabataayo bal ii waran bal ii iga dabageeba waxaan u shaqeeyaa hay-ad caafimaad haye oo la shaqeysa waalidiinta haye iyo faamilada la shaqeysa Haye. labada qof oo isqaba haye waxa aan qabto aniga shaqsiyan waxaa waaye inaan kala hadlo faamilka kala dheerinta ilmaha iyo labada qof inay wada hadlaan ninka iyo yacni xaaska iyo odaga isqaba inay wada hadlaan ay ka wada tashtaan wixii yacni sida hadda ilmaha in la kala dheereeyo oo kaleeto waa arrin u baahan in go-aan laga gaaro labada qof inay ka wada hadlaan marka anaga inaan yacni arrimahaas aanu waalidka aanu ka wacyigelino kala hadalno wixii macluumaadan aan siino bal ii faahfaahay marka arrinta maxay tahay arrintaa wallahi si fiican baan kugu faahfaahinayaa Haye. sababtoo ah waa aniga shaqadeedaba waaye waqti dheer baan ka shaqeynaya waa arrin aan fahansanahay runtii in labada qof ay yihiin laba qof oo yacni guri ka dhexeeyo oo tala ka dhexeyso oo wada hadal iyo isfahan ka dhexeeyo waa arrin aada u muhiimsan ilmaha in la kala dheereeyana waxa ay dan ugu jirtaa hooyada aabaha iyo ilmahaba dan baa ugu jirta yacni caafimaadkooda guriga iyo koridii ilmaha koritaankooda labada qof iyo wada hadalkooda iyo wada shaqeyntooda waxaa ka dhexeynayso yacni maslaxo ayaa ugu jirto caafimaad ayaa ugu jiro wanaag badan ayaa ugu jiro inay arrintaas yacni ka shaqeeyaan waxaan ku weydiinayaa saaxiibay arrintaas waa arrin fiican haddii hal waalid uu go-aanka qaato maxaa dhacaya hal waalid hadduu uu go-aankaas qaato haa waxaa dhacaya dhib aada u weyn haye waa dhacaya haye waxaa la socotaa labada qof guriga hal qof kuma dhisnaa waa sax ku dhisan yahay laba qof ayuu ku dhisan yahay marka maadaama guriga uu laba qof uu ku dhisan yahay go-aankiisuna labada qof waa uu ka dhexeeyaa arrintaanina waa arrin aada u weyn Sax. go-aan weyn oo labada qofba saameynaya Sax. marka waxaa muhiim ah in labada qof ay arrintaas ay ka wada hadlaan ay ka wada tashtaan ay falanqeeyaan qof keliyana go-aan haddii uu gaaro waxaa imaanaya faamilka dhib ayaa soo gaaraya waxaa laga yaabaa inuu khilaaf soo dhex galo inuu isku dhac imaado marka waxaa muhiim ah labada qof in yacni arrintaas ay ka wada hadlaan waa waqtigee marka ugu fiican labada qof ay ka wada hadli karaan arrintan runtii waqti kasta waa laga wada hadli karaa Haye. laakiin waxaa muhiim ah in laga wada hadlo labada qof intaysaba ilmo dhalin intaysa ilmo meeshii aysan imaanin sababtoo ah waxay u suurtagelayaan ama ay u suurtagelinaysa taasi inay labadii qof ay ka wada yacni helaan macluumaad waqti ay ku raadsadaan ay waqti arrintan ku fahmaan muhiimadeeda ay ku fahmaan wixii u diyaar garoobaan labadii qof ayagoo isku maskax iyo isku fahan iyo isku jadwal ah in yacni arrintaas ay yacni ay ka hadlaan marka in marka ugu horeysaba intaan ilmihiiba aan la dhalin labadii qof ay arrintan ay ka wada hadasho iskuna go-aan yihiin isfahansan yihiin qanaacana ay ka jirto oo isku qanacsan yihiin ayagoo baarid badan sameeyey oo yacni fahmay oo darsay oo ku qanacsan waa saxan tahay waana kugu raacsanahay laakiin odagaygu wuxuu jecel yahay caruur badan inuu dhalo jecel yahay marka waxaan u malaynayaa inay igu adag tahay inaan kala hadlo kala dheereynta ciyaalka caruurta waa saxan tahay waa laga yaabaa dad badan oo saasana way jiraan laakiin waxaa muhiim ah in aad fahanto inuu fahmo arrintaas dadka qaar ka aaminsan yahay ilmaha haddii la kala dheereeyo in yacni ilmihii la yaraynayo oo kaleeto Sax. muhiimadu ma aha arrintan waxa loo sameynayo waxa weeye in labadii qof gurigii iyo ilmihii iyo hooyadii iyo aabihiiba inay arrintan ay maslaxa ugu jirto sax marka inuu fahmo dhibaatada haddii ilmaha la isku xixijiyo faamilka kusoo kordhaya uu fahmo caafimaad darrada faamilka u imaanaysa uu fahmo caafimaad darrada u imaanaysa hooyada guriga wuxuu ka nool yahay waa hooyada haddii hooyadii ay sanad kasta dhasho oo sanadka marna uur leedahay marna umul tahay marna ilmihii ay naasiinayso dee waad garanaysaa waa qof yani dhiban ilmaha inay markasta marka dhasho sanad kasta cunug kala dhasho runtii ma samayn karayso inay ilmihii kaleeto ama xataa cunugii dhashay xaqii hooyada uu ku lahaa uu helo diiniyan diinteena way ka hadashay si fiican u hadashay aayad qur-aanaa jirta oo dhahaysa xawleyn kaamileyn inay maamadu
ilmaha naas nuujiso micnaheedu waxa waaye waxay ku baarandeg kuugu tahay in yani ilmihii ay kala dheeraadaan صح kii kale oo aad dhashana xaqiisii aa siiso oo uu koro oo maskaxiyan uu u koro waad mahadsan tahay saaxiib inaad arrintan ila wadaagto kala dheereynta caruurta qoyskaygana inuu qurux badnaado waan rabaa absolutely marka aad baan ugu faraxsanahay adigana aniga walaal aad ayaan ugu faraxsanahay qof yahay waqti hore ayaa isugu keen dambeysay inaan maanta ku imaado adoo guri leh gurigaaga aan ku imaado ku arko oo wada hadalno oo in wax isla meel dhigna arrin aad u qurux badan waaye waxaan kaloo ku siinayaa macluumaad badan baan ku wadaa oo aan kaaga soo qaaday welshare kaaga soo qaaday ayaan ku dhiibayaa waxaan kaleeto oo aan ku siinayaa link uu sameeyey shin oo aan wada garanayno sheeqeena ah oo ka hadlaya diintu waxa ay ka qabto kala dheereynta ilmaha marka xataa dhinaca kaleetana dhinaca diinta dhinaca kaleetaba in labadii qof waa ku wada warkaana wad ii wadaa waa YouTube waay marka waxaan rabaa odaga inaad habeenkii markuu yimaado shaah iyo adduun iyo u dhigto YouTube ku awgalisada waliba arrinta ila faham waa fahantaa aad ama mahadsantahay صافر سمعها هاي ما هي ايور الحمد في لله عنته سيدتها هاي ولا وناكسين سيدتها ما هي حالك شقينس كمبيوتر كان وحكي لي ما هي الحمد لله معنا حربينا وحكاله هدلو هي arin baa rabay inaan kaala hadlo ii sheeg soo daaba aan dhageystay ma garanayo sidaan kuugu sheegi doono arintan maxaa wad ogtahay inaan qof fahmo furanahay soo dhaweynayo arrimahaaga iyo arrimaha qoyska ma ka dhageysanaya soo daaba waxaan rabay inaan ka wada hadalno haye kala fogeynta dhalmada kala dheereynta caruurta laakiin wad ogtahay baby anu inaan jeclayna caruur badan yeelano inaan dhalmada caruurta yareyn aniga waan jecelahay inaan ilmo badan dhalno laakiin maanta gabar saaxiiba aan nahay ii timid oo ka shaqeysa caafimaadka bulshada waxay ii sheegtay inayna wax saameyn ah ku lahayn tirada ilmaha kala fogeynta dhalmada inayna ku lahayn saameyn tirada ilmaha aynu dhali doono waa arrin aad u fiican halkeenu ka helnaa halkeenu wax ka bilowna waxaan ka helaynaa ii sheegtay gabadhaasi marka hore inaan baraha dhakhaatiirta dhakhtarkeena inaanu tagno sax waxa kale ii sheegtay in wadaad sheekh muxaadaradiisa in linkigeeda siisay oo waan inoo daaraya hadda saad ila daawatid adigana waa sax cajalada inoo daar ballantana waan qabsan doonaa waa xaaji waad mahadsantahay waan ku mahadsantahay saad ii dhageysatay iyo fikirka aad ila qaadatay qoyskeena aad caafimaadkiisa aad igu raacday islaamku wuxuu u taageeraa mar walba uu ka hadlaa maslaxadda qoyska sidii qoyskaasi u noqon lahaa qoys wanaagsan sidaa daraaddeed islaamku wuxuu xoojiyaa wax walba oo maslaxadda qoyska ku xiran qur-aankan ugu sheegay suuratulbaqara walwaalidaatu yurdicna macnaha ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku leeyahy waalidaadka carruurta dhalay ha nuujiyaan carruurtooda 2 sano oo kaamila hadduu qoysku yahay qoys u baahan hooyadii ay tahay hooyo xanuunsanaysa hooyo bugta ama dhibaato kale ah haysata waxaanu farnaa hooyadaasi sidii ay carruurtaasi waxa weeye u kala fogeyn lahayd oo nuugmadooda iyo caafimaadkooda iyo tarbiyadooda iga faa'iidaysan lahayd islaamku 2 qaybood buu u kala qaadaa hadday hooyadu xanuunsan tahay waxa weeye waxay xaq u leedahay inay waxa weeye carruurtii kala fogeyso hadday u baahan tahay inay tarbiyeeyaan oo akhlaaqdoodii dhaqankoodii ay wanaajiyaan inay kala fogeeyaan haddii niyada dadka isguursaday ay yihiin inay ilmahaasi uga fikiraan oo niyadooda ay tahay waxay carruurta u joojinayaan inaysan irsaaqad iyo waxay siin lahaayeen aysan hayn sidaa daraaddeed shareecadu waa ku xaaraan dhaqankaasi qodobkaasi haddayse tahay dhibaato iyo darar la soo darsaya hooyadii ama ay tahay tarbiyo 2 shay bay yidhaahdaan daruuro hadday keento dhibaato hooyadii la soo daristay oo takhaatiir lagu kalsoon yahay ay siiyeen inay ilmihii kala fogeeyaan ama abay joojisaba iyo hadday xaajo keentay sida tarbiyada carruurtii la tarbiyeynayo hooyadii oo waxa weeye nafaqadeedii iyo dhiiggeedii hooseeyo u baahan carruurtaasi dhaqankeeda loo hagaajin lahaa 2 xaalana way bannaan tahay xaalana ma bannaana xaalada waxa weeye irsaaqada ilmihii waxaad siin lahayd aad ka fikirto aad u joojiso xaaladda waa xaaraan haddii aad u joojinaysid daruuro dhib haysata hooyadii oo takhaatiirtiina kula taliyeen ama xaajo iyo dan ay keentayna 2 xaalana way bannaan tahay shardina waxay ku bannaan tahay inay labadooda ka heshiiyaan oo ku wada hadlaan وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ma fiicantihiin Xaliima iyo Geelle soo dhawaada maxaad u socoteen maanta waxaan baaritaan badan ku sameynaa aniga odagaygu sida dhalmada loo kala fogeeyo waxaan rabnaa inaan go'aan ka gaarno arrintaas wow dadaal badan baad samayseen maanta waxaynu falanqayn karnaa habab badan oo caafimaadka qoyskiina wanaajin kara hadda waxaanu leenahay 2 caruura da'dooduna aad bay isugu dhowdahay waxaanu jecel lahay inaanu kala dheereyno caruurta laakiin gebi ahaanba ma rabno inaan joojino dhalmada amaba aanu yarayno waad mahadsan tahay qaabo badan baa jira oo aad dhalmada ku kala dheerayn kartaan idinka oo aan gebi ahaanba joojinaynin waa si fiican laakiin waxaan maqlay in lagu cayilo waxaan ka cabsanayaa inaan ku cayilo cabsidaasi way jirtaa runtuse waxa ay tahay inaan lagu cayilin qalabka kala dheeraynta dhalmada dumar badan ayaa qalabka isticmaala iyaga oo ku jira marxalad jidhkoodu isbeddel badan samaynayo markaasay cayilaan waa la ogyahay in irbadda dhibo lagu xidhiidhiyo cayilka laakiin dumarka cayilkoodu iyo caafimaadkoodu waxay ku ilaalin karaan jimicsiga iyo cunto caafimaad leh waa runtaa waa muhiim cuntada caafimaadka leh iyo jimicsigu sax taa doorataba inaad caafimaadkaaga ilaaliso ayaa fiican waynu falanqayn karnaa cilladaha kaaga iman kara dawooyinka iyo qalabka kala dheeraynta dhalmada haddii aad wax cillada ku aragto taa dooratay waynu bedeli karnaa tusaale ahaan waxaa jira qalab badan oo aan cayilka keenin sida IUD iyo implantka waxaa kaloon maqlay in dhiiggu dumarka ka khalkhalo ama kaba guuro ma run baa arrintaas waa sax dumarka qaar dhiiggu waa ka khalkhalaa markaay isticmaalayaan kuwa hormoonada leh waase wax dhammaada oo aan joogto noqon dumarka qaar 3 ilaa 6 bilood buu dhiiggu ka khalkhalaa marka ay joojiyaan qalabkay isticmaalayaanna caadi bay noqdaan haddii aad wax dhibaato ah ku aragto taad isticmaalaysid markiiba dhakhtarkaaga kaalay kadib waynu isla eegi sidaynu u bedeli lahayn aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaad na siisay macluumaad iyo warar dheeriya oo aanan hore u hayn laakiin waxaan maqlay warar ama macluumaad inkastoonan hubin inay run iyo been midkay tahay fadlan i weydii wax kasta dadka qaar baa ii sheegay in waxyaalaha kala duwan ee loo isticmaalo kala dheeraynta ilmuhu ay gebi ahaanba joojiyaan dhalmada arrintaa maxaa ka jira inkastoo ay jiraan qalab loogu talagalay in haddii la isticmaalo aan dib loo dhalin haddana qalabka badankoodu sidaa ma aha marka aad iska saarto waad dhali kartaa markuu ilmihii hore ku koro hooyaduna caafimaado ayaad haddana ilmo kala dhali kartaa waan fahmid waa war fiican weeyaan maxaa ka mida kuwaas waa su'aal fiican sidaan hore u soo sheegay qalabka muddada dheer loogu talagalay ee ay ka midka yihiin IUD iyo implant ayaa uurka si fiican u kala durkiya qaar kale oo badan inaad maqasheen ayaa laga yaabaa sida kiniinka iyo baanjka iyo kuwo kale oo fara badan aad baan ugu faraxsanahay inaan ku nimaano maanta waxaan maqlay qalabka kala dheeraynta dhalmada qaarkood inay hormoono leeyihiin mana faahfaahin kartaa taasi run ma aha qaar hormoonna leh iyo qaaraan lahaynba way jiraan tusaale ahaan copper IUD hormoon ma laha diaphragmkuna hormoon ma laha haddaad naaska si joogtaa u nuujiso ilmaha waxa dhaca inaanad 6 bilood uur qaadin dumarka intooda badani cillado iskuma arkaan markay isticmaalayaan qalabka aan hormoonka lahayn dumarka qaarna macaka hormoonka leh wax cillada kama qaadaan gabadh kastaaba way ka duwan tahay gabadha kale waaw aad baan ugu faraxsanahay warkaas inaan maqlo aniga odagaygan waan kasoo tashan doonaa ballan ayaanan qabsan doonaa kale waa si wanaagsan macluumaad ayaan idiin hayaa aad guriga u qaadan kartaan oo ay ku qoran yihiin qalabka kala dheeraynta carruurta intooda badani warbixinta waa soo darsi kartaan kadibna waxaad su'aalo qabtaan waad iila iman kartaan aad baan ugu faraxsanahay inaan ka wada hadalno mustaqbalka caafimaadka qoyskeena ana aad iyo aad baan ugu faraxsanaa inaan si wada jir ah aan ka gaarno go'aanka qoyskeena